ku soo dhawow Barqabtiyo haddii aadan ka mid ahayn macaamiisheena waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe dhahdo channelkeena waxaana ku ballan qaadaynaa inaad naga heli doonto barnaamijyo la jeclaysto waxaan guda geli doonaa mowduuceena la xiriira 4 hab oo sahlan oo aad si degdeg ah ugu taajiri karto ama 4 talo oo ka caawinaysa inaad si degdeg ah maalqabeen u noqoto inta badan ilaha aan kaashan doono waxa ay ku aroori doonaan ganacsadaha ahna macalinka nolosha ee u dhashay dalka Mareykanka Jay Robbins ma ahan inaan ku sheegi doono mucjiso dhacda deedna maalqabeen noqoto maalin qura ama ku guuleysiga khamaar lottery ticket oo aad maalin gudaheed malaayiin dollar hesho waxa aan ku siin doono kaliya waa talo kobac dhaqaale oo degdeg ah ka caawin karta qoraa ahna ganacsade Jay Robbins wuxuu 4 qish ku bixiyay buugiisa Money Master the Game kaasoo dabacadiisii koobaad la akhristay dabayaaqadii sanadkii 2014 wuxuuna yiri Tony Robbins haddii aad qaadato kula dhaqanto mid kamid ah talooyinkan waa hubanti dhaqaalaha ugu kobciya haddii aad dhamaantood qaadato kula dhaqantana waxaad noqonaysaa maalqabeen sanado gudahood qishka koobaad waxa uu yahay kaydsa lacagtaada maalgashina sameey inkastoo aysan sahal ahayn in dadkeenu badi ay lacagtooda kaydsadaan haddana waa istaraatiijiyad ka caawinaysa inuu maalkaagu kobco haddii aad lacag badan kaydsato kadibna hab caqli ku dheehan yahay aad u maalgashato Robbins wuxuu qabaa in si degdeg ah aad ku gaari doonto yoolkaaga maalqabeenimo isku day in dakhli badan uu ku soo galo isla markaana lacagta ku soo gasha aad maalgashi ku samayso tani waa mid kamid ah hababka ugu sahlan ee aad maalqabeen ku noqon karto waliba si degdeg ah sida uu qabo ganacsadaha la yiraahdo Robbins qishka saddexaad wuxuu yahay mar walba ha yaraado qarashka ka baxaya xitaa gaari fulba ha noqdee marba haddii dakhli fiican ku soo galo bisna aad maalqabeen noqon weysay sanado badan adigoo isku dayaya inaad tujaar noqoto haddana aysan taasi ku suurta gelin waa inaad fahamto halka dhibku uu ka haysto maxaa yeelay markaas waxa badan qarashka ka baxaya ee maalayacniga ah tusaale qarash garay nus kamid ah dakhliga ku soo galay inta kalena akoonkaaga ku shubo waana talo wanaagsan oo ku anfacaysa sida uu qabo Tony Robbins qishka afraad ugu dambeeya waxa uu yahay wax ka bedel qaab nololeedkaada lifestyle ayaa loo yaqaanaa tusaale isbedel ayaad ku samayn kartaa lifestyle-kaaga adigoo ka guuray xaafadda ama magaalada aad degan tahay haddii maciishadu kugu kulaato ama guryo ay qaali yihiin inta badan waa kaarto ay isticmaalaan dadka shaqada ka gabooba Robbins wuxuu qabaa inay tahay in kaartadan looga daydo dadka shaqada ka fariista maxaa yeelay marka ay shaqada ka gaboobaan durba deegaanka ay bedeshaan tusaale habka aad u nooshahay wacayaad ka bedeli kartaa inta badan waxaad ka cararaysaa in shidaal badan aad isticmaasho waxaad noqonaysaa mid gurigiisa cunada ka cuna oo aan maqaayad isticmaalin waxyaabaha la halka maalana waxa ay ka caawinayaan inaad tujaar noqoto waliba si degdeg ah waxaan rajaynaynaa inaad qaadatay 4 talo ee aan ku siinay ee Tony Robbins laga soo xigtay isla markaana aad ku dhaqmi doonto si aad tujaar u noqoto mustaqbalka dhow mar walba ka mid noqo macaamiisha Barqabtiyo